rabaa inaan xoogaa yara taabto taariikhdii wasiir xoosh uu leeyahay gaar ahaan waxbarashadiisii muddadii aan wada shaqaynaynay intii aan aniga ka ahaa agaasimaha guud wasaaradda arrimaha dastuurka isagana wasiir markii labaad ka noqday wasaaradda arrimaha dastuurka sida uu isaga in badan igu sheekeeyey maadaama aan ahayn dad wada shaqaynta ka sokowna wasiir cabdiraxmaan xoosh jibriil allah u naxariistee waxaan isku ahayn dad aad iyo aad isu dhow isagoo madax ii ah ayaa waxaan isu noqonay dad saaxiibo isku dhow ah aad iyo aad u sheekaysta shirarka isla wada aada mar walbaahi aan xiriirkeennii kala go-in hadday ahaan lahayd inaan xafiis isugu wada imaano ama goobo kale isugu wada imaano si joogta isku aragno haddaynaan is arkinna mar walba khadka taleefonka ah iskagama bixi jirin oo mar walbaahi xaaladda wasaaradda iyo howlaha waa ka wada sheekaysan jirnay marka wuxuu ii ahaa muxuu ahaa saaxiib wuxuu ii ahaa tababare gaara wuxuu ii ahaa sida aabbahe oo kale ayuu ii ahaa marka dareenkayga runtii ma la soo koobi karo oo xanuun aad iyo aad u ballaaran runtii ayay igu leedahay saameynta iyo xanuunka uu igu yeeshay geeridii ku timid marxuum wasiir cabdiraxmaan xoosh jibriilna waxaan aaminsanahay inay tahay mid raadkeeda igu sii dambeyn doono xusuusteydana kama go-i doonto mar walba maxaa la yidhahdaaye wasiir cabdiraxmaan xoosh jibriil wada shaqayntii iyo muddadii aan wada joognay wasiirku horta wuxuu ku dhashay magaalada jowhar muxuu ahaa gobolka shabeellada dhexe 1956 halkaas ayuu kusoo barbaaray waxbarashadiisiina ka bilaabay dugsiga hoose dhexe sare wuxuu ka mid ahaa dadka aad iyo aad u firfircoonaa dhinaca waxbarashada taasina runtii waxaa laga dareemi karaa aqoonta baaxsan aad iyo aad u baaxsan uu lahaa wasiirku oo dhinac kastana uu lahaa dhinaca bulshada iyo dhinaca aqoonta sharciga laftigeeda in badan uu kusoo shaqeeyey wadanka gudihiisa iyo muxuu ahaa inta badan uu kaga soo shaqeeyey xirfadaasi dhinaca sharciga wadanka Canada sida in badan uu iga sheekeeyey markuu hoose dhexe sare dhiganayay wuxuu ahaa ardayga mar walba ay fasalka ugu horeeyay kaalinta koowaad gala iskuulkii missionka ayaa qaatay kadib missionkan inta badan waxaa loo qaadanay ardayda kaalimaha koowaad gala ama ugu firfircoon ayaa loo qaadanayay markuu dugsiga sare ka baxayna wuxuu aaday wadanka Canada kahor intuusan dagaalka 1990 dhicin Canada markuu aaday waxbarashadiisii kama daalin halkaas ayuu kasii waday wuxuu diyaariyay Bachelor of Arts oo wuxuu ku diyaariyay Sociology cilmiga bulshada ayuu ku diyaariyay isagoo ka baxay jaamacadda York University ee ku taala Toronto Ottawa gaar ahaan kulliyadda loo yaqaano Osgood Hall Law School ayuu ka baxay kadibna wuxuu diyaariyay muxuu ahaa sharciga law ayuu diyaariyay isagoo jaamacadda uu ka baxay law kaga baxayna waa isla York University raali ahaada jaamacadda koowaad uu ka baxay waxay ahayd University of Toronto laakiin jaamacadda uu ku diyaariyay sharciga ayaa loo yaqaano Osgood Hall Law School ee ku taala muxuu ahaa York University isla Toronto Canada kadib xirfadii uu bartay ee sharci yaqaannimada ah ayuu ku shaqeeyay wuxuu ahaa qareenada Soomaaliyeed ee ka tilmaamay wadanka Canada oo professional lawyer ayuu ahaa oo u khidmeeyay muxuu ahaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee Canada jooga iyo dad kale oo aad iyo aad u fara badan ayaa macaamil u ahaayeen inuu ugu khidmeeyay xirfadda uu barto dhinaca sharciga waxyaalaha inta badan uu sameyn jiray waxaa ahayd sharciga qaxootiga sharciga immigrationka dadka muxuu ahaa socdaalka iyo soo galootiga sharciga muxuu ahaa familka sharciga shaqaalaha iyo sharciga xuquuqul insaanka arrimahaas ayuu ka shaqeyn jiray wuxuuna aad iyo aad runtii ugu ololeyn jiray badanaaba maadaama uu bartay arrimaha xuquuqul insaanka arrimaha xuquuqda aadamiga ah wuxuu saaxiib la ahaa dadka oo idil hadday ahaan lahaayeen dadka runtii vulnerable-ka ah ama liita sida muxuu ahaa dadka baahiyooyin gaar qaba ama naafada haweenka oo aad iyo aad u nugul iyaguna aad muxuu ahaa ugu ololeyn jiray saaxiib la ahaa dhalinyarada saaxiib ayuu la ahaa wuxuu ahaa nin dadkoo dhan u siman dhinaca muxuu ahaa shaqada markii la eego kasoo tag shaqadii sharcinimada ama qareennimada ugu shaqeynaya wadanka Canada bartamihii 2011 ayuu wadankii kusoo laabtay Soomaaliya halkaasoo dowladii uu madaxweyne ka ahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed ugu yeertay inuu noqdo wasiirka arrimaha dastuurka iyo dib-u-heshiisiinta xilligaas uu dastuurkii qabtay ilaa iyo xukuumaddaasi ay mataqaanaa waqtigeeda dhammaado 2012 bishii September wasiir xoosh wuxuu ku howlanaa sidii cahdi qarameedkii muxuu ahaa lagu ansixiyay 2014 Kenya
in laga gudbo oo loo gudbo dastuurka marka dastuurkaasi sabab ayuu u ahaa in maanta dastuurka aynu ku dhaqanno laba xukuumadood lagu soo dhisay in wasiir Cabdiraxmaan Xoosh uu halkaas soo gaarsiiyay ahda qarmeedkii ka soo saar dastuurku meel gaar ah keeno waana dastuurka maanta aynu wada haysano muddadii 2012 September August 2012 ilaa iyo muxuu ahaa horraanta 2017 wasiir Xoosh siyaasadda marnaba kama u bixin uu ku dhex jiray wuxuu noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya kaalin iyo door muhiim ah ayuu ka ciyaaray xilligaas siyaasadda Soomaaliya isagoo madax ka ahaa guddiga xuquuqul insaanka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya xilligaas isagoo xildhibaan markaas wasiir ka ahayn xitaa dastuurka waxaan aad iyo aad u ogaa inuu mar walba ku howlanaa arrimaha geedi socod dibeygiisa dastuurka xilligaas isagoo xildhibaan uu ku howlanaa qaabo badan iyo siyaabo badan oo ugu shaqeynayay talooyin badan oo ka dhiiban jiray 2017 bishii Maars bishan aan ku jirno kale ayaa mar kale wuxuu fursad wasiir marxuum Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil fursad u helay in uu noqdo wasiirka arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waana jagada hadda isagoo mataqaanay hay uu ku geeriyooday waxyaalaha uu ku fikiraya waxay ahayd isagoo nasiib u yeeshay inuu noqdo wasiirkii ahda qarameednimada ka soo saaray sabab u noqday in Soomaaliya ay yeelato dastuur ku meel gaar ah oo inagoo dhan ku wada dhaqanno maanta aan dastuurka kaliya maanta in kala saara aynu ku dhaqanno xukuumadaha iyo dawladda iyo madaxda dhan lagu dhaaray ayaa haddana wuxuu ku fikiray in ku meel gaarnimada ka saaro uu dastuur dhammaystiran Soomaaliya yeelato xilliga loo asteeyay dastuur rasmi inay yeelataan waxay ahayd 2019 shaqo aad iyo aad u balaaran ayuu ka qabtay oo aniga marxaati ka ahay wasiirku wuxuu wasiir mar labaad noqday anigoo agaasimo guud wasaaradda ka ah xilligan ayuu mar labaad noqday si dhow baa u wada shaqeynay malafka markuu gacanta ku dhigay isbedel aad iyo aad u balaaran ayuu runtii ku sameeyay wuxuu soo gaarsiiyay meel aan caadi ahayn